kulanti wacan waxiisa la dhamaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aanu ku soo gunaanayno ama aan ku soo gabagabaynayno wafdigii madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haatan safar shaqo ah ay ugu soo dhamaatay wadanka Imaaraadka. Ambassador Baashi ayaa dhinacayga fadhiya oo aan bal ka wareysanayo sidii ay wax u dhaceen iyo bal waxyaabihii halka ka soo baxay intaba si aan markaasi guud aan u dul marno. Ambassador Baashi ku soo dhaw telefishinka qaranka Soomaaliland. aad iyo aad baad mahadsan tahay Uriye Dalmar iyo bahda TV-ga qaranka waxaan runtii ka mahad celinaynaa sidii wanaagsaneyd ee aad uga hadasheen ee ugu soo gudbiseen dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland halka uu wax marayaan muddadii waftiga madaxweyne ku-xigeenka uu joogeen halkan dalka Imaaraadka Carabta aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waa mahadsantii baan ugu باشا لا شكرا على واجب إن رنتي برنامج هذا علص بوها مركز تلفزيون قرن كل حقوق أنكو جاري إن وكافرج ومدة أسميه إن أمباسطر وح هذا عن سوق بجبيني سفر كي مدحوينك حجينك بل هدي أتكسب بلا وضم ما أنتي وجوه الرئيسي أي مادين إلا يمان توش قدو ذا أيضا ماتي بل هذا ذي نوجود مرتب بل كور هوش أهل كان سيدابو قبصنت إن dalmar saad la socoto waftiga madaxweyne ku-xigeenku waxay yimaadeen maalintii arbacada ahayd ee bisha March ahayd 15 maanta oo ay ka soo wareegtay muddo week ihina waxay halkan kulamo kula qaateen madaxda dalkan waftigu arimaha ugu waaweynaa ee muddada halkan ay joogeen ka wada hadlayeen madaxda halkan waxa ay kamid ahaa arintii saldhigga militariga oo saynu la wada socono la soo afjaray oo maalintii March bishii March 19keedii la saxeexay oo ahayd maalintii Axad ahayd waxa kale oo waftigu muddada ay joogeen kulamo la qaateen madaxda dalka ay ka mid tahay madaxa ugu sareeya hay'adda Khalifa Foundations madaxa hay'adda Maxamed bin Rashid Relief hay'adda iyaduna Dubai ka shaqeysa iyo hay'ado kale oo ku mucaawanada ah oo ka mid tahay Hilaal Ahmar ujeedada ugu weyn ee waftigu mudooyin hay'adaha ay la kulmayeen ay u gudbinayeen waxay ahayd xaaladda abaaraha ee dalkeena ka jirta siday ugu soo bandhigi lahaayeen dalka Imaaraadkuna qaybtiisa uga qaadan lahaa marka guud ahaan markaad eegto kulankii hore ay la qaateen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan oo ah wasiirka madaxtooyada isla markaana ah ku-xigeenka Prime Minister-ka dalka Imaaraadka oo ay la kulmeen maalintii arbacada ahayd kadibna waxa ay maalintii khamiista ahayd kulamo la qaateen iyo maalintii Axad ahayd madaxa ugu sareeya hay'adda Abu Dhabi Fund Mohammed Saif Al Zubaydi kulamadaas oo dhan waxaad runtii oran kartaa ujeedooyinkii ugu waaweynaa ee waftigu Jamhuuriyadda Soomaaliland u yimaadeen halkan si guul ah ay u dhamaatay waxaana ugu dambeeyay kulankii shalay toola ay la qaateen wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda His Excellency Faris Al-Mazruuci oo isagana kala hadleen arrimaha xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa marka guud ahaan waxaad oran kartaa waftigaasi dalmar oo si wacan oo wanaagsan ay ugu dhamaatay hawshii shaqo halka ugu yimaadeen insha Allah imika waxaynu rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan leh gurmadkii abaaraha dalka u soo gaaro iyadoo wasiirka madaxtooyada markii uu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka u ballan qaaday in dawladda Imaaraadku qayb lixaad ka geysan doonto arrimaha abaaraha waxaana imika ay soo ogolaadeen qaybtii hore oo ugu horeysay oo ah inay mashaariic lacag ilaa 2 milyan gaaraysa ay ugu deeqaan dadka abaaruhu waxyeeleeyeen dadkaas waxaana loo soo marin doonaa insha Allah hay'adda Khalifa Foundation oo iyadu keeni doonta dalka marka dhinaca kalena dee waxaan la wada soconaa inuu heshiiskii dhamaaday oo heshiiskiisi wacan oo guul loo saxeexay taana wax badan kaga noqon maayo oo waxaad filayaa inaad si fiican u gudbiseen oo madaxda aad uga wada hadashay marka guud ahaan markaad eegto runtii ujeedadii halkan ugu yimaatay waftigu si wacan oo wanaagsan ayuu dhamaatay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allahna maalinta bariya waftigu waxay tagi doonaa dalkii iyadoo rajin doona markaa in Ilaahay si nabad qab ah ku geeyo dalkii Ambassador Baashi waxaan ognahay heshiisyadan ballaaran completely intii hadda aan saxaafad ahaan aan idin la soconay nidaamka dawladnimada ee la idin soo dhaweynayay aad iyo aad buu maqaamkeedu u sareeyay ma oran karnaa marka dalka Imaaraadku Soomaaliland itiraaf buu u fidiyay aan afka ahayn laakiin qalbiga ah
dalmarow saad sheegtay madaxda Somaliland ee ugu horeeyay madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdigii ballaanaa uu hogaaminayay muddadii halkan ay joogeen si wacan oo meeqaam sare loo soo dhaweeyay waxaad ka garan kartaa maalinta ay yimaadeen sidii qalbiga furnayd ee dhaqsaha ahayd ee markiiba loo qaabilay ee loogu geeyay wasiirka madaxtooyada ahana ku-xigeenka Prime Ministerka Sheekh Mansour bin Zayed Al Nahyan sidii madaxda kale dalka Imaaraadku u qaabileen mid walba si qalbi furan oo soo dhaweeyay ha ugu dambeeyay wasiir ku-xigeenkii khaarijiga oo isaguna kula kulmay ugu yimid hoteelka oo wasiirka iyo madaxweyne ku-xigeenka kulan ballaaran oo saacada la qaatay waxyaabahaas oo dhow waxay ku tusayaan runtii dareenka iyo walaaltinimada labada shacab ka dhaxaysa ee soo jireenka ah dalka Imaaraadku runtii waa dal aynu xidhiidh taariikhiya leenahay oo ganacsi oo weligiiba soo jireen ahaa hase yeeshee intii kulli xukuumaddan jirtay waxay xoogga saartay inay furfurto xidhiidhkii ay la lahayd dalalka carabta xidhiidh siyaasiyana aynu la samaysano dalka Imaaraadka tiraba waynu ognahay in ka badan 4 jeer ayuu madaxweynuhu halka yimid oo la qaabilay mar walba la qaabilana madaxweynaha mustawihiisa lagu qaabilayay lagu kulmayay waxay ahayd mid aan ka dhicin mustawaha ay madaxweynayaasha kala ku qaabilaan madaxweynuhu markii ugu dambeysay halkan kulankii ugu dambeysay uu yimid oo kula qaatay 2015kii Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan iyo Sheekh Mansour bin Zayed Al Nahyan waxa lagu qaabilay oran kartaa meeqaamkii ugu sareeyay ee madaxda dalka dunida lagu qaabilo hadduu yahay madaxweyne Mareykan iyo hadduu yahay mid Ingiriisba ayuu ahaa marka dabcan dawladda Imaaraadku marka aad eegayso engagementka iyo xiriirka ay la leedahay dalka Somaliland waxaad oran kartaa wax alla wuxuu ka duwan yahay xiriirada ay la yeelato wadamada aqoonsiga wax alla wuxuu ka duwan yahay ma jirto madaxdeena waxa loo qaabilaa sida madaxda kale dunida loo qaabilo madaxda aragta madaxweynayaasha kale ay baana sida meeqaamka ay ku arkaan kula arkaan waxaasina waxa dhalinaysa maslaxadda iyo danaha labada dal ka dhaxeeya sidii la isu waafajin lahaa sidii walaaltinimada loo xoojin lahaa sidii xiriirkaas oo jireenka ahaa inuu ka shaqeyn lahayd marka dabcan dawladdeenu waxyaabaha ugu waaweyn ee xoogga saartay wuxuu ahaa inay dawladda Imaaraadka ah aynu xiriirka la leenahay aynu kor u qaadno waana oran kartaa heshiiskan maanta laba cisho ka hor la saxeexay ee ay Somaliland iyo Imaaraadku wada saxeexdeen wuxuu qayb ka noqon doonaa waxyaabaha ugu waaweyn ee maaragtay gundhiga u ah isku xidhka labada dal ee Somaliland iyo Imaaraadka marka runtii ambassador si wanaagsan oo qurux badan baad u sharaxday shacabka Somaliland marka gudaha iyo dibadba waxay hadda ay isweydiinayaan in talaabadii labaad heshiiskii waad gasheen dadtiin dawladda Somaliland marka dadkii imika waxay sugayaan ciidamadii Mawiga dambe imanayaan bal iyadana processkaasi iyo sida u dhacayo wax bal iyadana sheeg orta deetaan ciidamada iman wax badan baa ka horeeyay runtii imika waxa dhacay heshiiskiisa aad sheegisay kadib waxa ku xigaya gudiyada farsamada ahaa ee labada dhinac gudiyada farsamada waxay markaa horta soo daraasinayaan mashaariicda xagga horumarka ahaa ee Somaliland la siinayay sidaad la socotaan heshiiska waxa ku qoran in 3 sano ugu horeeya lagu dhiso wadada Berbera iyo Wajaale in lagu dhiso madaar cusub in la sameeyo Somaliland laga taageero tamarta xagga haddii noqoto electricity-ga in la sameeyo horta Somaliland Imaaraadku ka caawiyo xagga biyaha iyo caafimaadka waxyaabaha soo dhan daraasaad bay u baahan yihiin tiimamkii la diray kadibna markaa waxa loo saari doonaa wasaaradii ka shaqo lahaa ee labada dhinac sidii ay wada shaqeyn lahaayeen marka taa la dhameeyo waxa barbar socotay iyaga laftirkooda daraasaadkii lagu sameeyay airportka waxa uu baahan yahay airportka lagu wareejinayo iyo ka cusub laftirkiisa halka laga dhisayo marka waxaad kulleeydo muuqata in hawlo fara badan horta ka horeeyaan inta aan la sameyn marka airportka la eego ee teamkooda soo diraan waxa laga dhisayo iyo sida loo hagaajinayo iyo waxa soo dhan eegaan kadib ayaa la soo dirayaa shirkadii dhismaha ay iyaduna hawl galaysaa kadib marka ay dhismaha dhameeyaan kadib ciidamada horta imanayaan ciidamada laftirkooda marka ay imanayaan qaab baa jira ay ku imanayaan marka horta waxay leeyihiin stages bay leeyihiin laakiin waxa soo dhan waa wax dawladda Somaliland iyo dawladda Imaaraadkooda shaqeyn doonaan waxaana la isla gartay in gudiyada farsamada ah labada dhinac ah laga wada shaqeysiyo waxaan runtii ku faraxsanahay in sanadka soo socdo uu noqon doono sanadkii shaqada oo bulshada reer Somaliland dhalinyarada faraha badan leh ee shaqo la'aanta jirto inay heli doonaan fursado shaqo maadaama mashruuci wadada ay dhismuhu bilaabin doono insha Allah maadaama madaar cusub Berbera loo dhisi doono maadaama dekadii la dhisayo iyaduna oo ballaaran oo iyaduna 350 mitir oo dekad cusub ah iyaduna dhismaheedii la galayo
mashaariicdaasoo dhan waxay noqonayaan mashaariic marka la keeno isbeddel iyo jawigii dalka wax bedeli doona oo shaqo la'aantii jirtay iyo dhibaatadii jirtay wax weyn ka samayn doona marka waxaanu leenahay shacabka reer Soomaaliland ee guud iyo dibadba inay soo dhaweeyaan insha Allah horumarka inay soo dhaweeyaan dadka ay maraya dadka ee wax dhisaya ee waxina la qabanaya iyagu horumarka doonayeen inay horseedaan in la furfuro oo aynu ganacsiga furfurno oo horumarka iyo wada shaqaynta furfurno maslaxada ugu weyn ee ugu jirto weeyaan si aynu u helno dhalinyaradeena iyo dadkeena wadanka u jira uga faa'iideystaan waynu ognahay oo dalka Imaaraadka waxa lagu dhisay oo daaraha quruxda badan leh aynu arkayna lagu sameeyay waa furfurnaanta waxaana furfurnaantaasi keentay inay dad ajnabiya oo maanta Imaaraadka 8 milyan oo ajnabiya ay jooga muwaadiniintooda markaad eegto waa milyan ma gaarayaan 8 milyan waxa u shaqeynayaan oo u sameynayaan oo u hagaajinayaan waa milyanka Imaaraadka ee dalka jooga marka hadday dad inoo yimaadaan oo wax inoo dhisayaan oo mashaariic loo sameeyo cidda u aayeysa helaysa reer Soomaaliland bay noqonayaan haddii dekad cusub inoo loo dhisay inaga inoo haraysa haddii madaar cusub inoo loo dhisay inaga inoo haraysa haddii kii hore inoo loo dhisay inaga inoo haraysa haddii cisbitaalayo inoo loo dhiso iyo daamam inaga inoo harayaan marka waxaan leeyahay cidda warxumo tashiilka ah ee wax idin sheegaysa sida kale wax idin ku sheegaysa ha dhageysanina horumarka soo dhaweeyo wanaagga soo dhaweeyo nabadgelyadiina ilaashada sidaas wax ku noqonaysaan sidaas aynu ku dhismayno dal jiro ku noqonaynaa marka insha Allah waanu ku hanweynahay oo shacabkayga shacabaan ku kalsoonahay weeyaan dad wanaagsan weeyaan dad had iyo jeer horumarka jecel weeyaan kalsooni buuxdana waan ku qabnaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane ambassador Baashe oo aan kula kulmay magaalada Abu Dhabi halkaas oo safarkii wafdiga madaxweyne ku-xigeenka uu ka mid ahaa isla markaana wadanka ku soo dhaweeyay runtiina intii aan halkan joognay guulo fara badan baan aragnay aad baan ambassador kugu mahad celinayaa inaad barnaamijka adiga la qayb qaadatay waana isu soo noqon doonaa insha Allah ta'ala aad baan mahadsantahay dalmar iyo bahasha TV-ga qaranka oo runtii waan ku mahadnaqayaa sidoo quruxda badneed barnaamijka soo gudbiseen insha Allah waxaan leenahay safarkii noqon kii ugu dambeeyay kuwa badan oo kala wadi insha Allah ta'ala adiga staafkaaga safaaradda sida Khalid oo kale aad baan ugu mahad celinaynaa iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda Soomaaliland oo barnaamijyadan runtii aad uga qayb qaatay waa dalmar oo idin leh saa iyo nabadgelyo markaan calankaara guud ka sugnee kunidaysu taagnayeen kuniba taladii garanoo kuushii hantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada allow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo allow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo gutiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaas oo go'ay
kala loo gelin haddaan kuma geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guran layn midhaha soo go'ay miyaan guran layn midhaha soo go'ay alloo ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo alloo ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo gafiyo uma haysta ruux godabo washayra xumaan kuman guntano baan ku ilaaway geeda baxshee dadkan degayba shaxdii qalbiye godkaan degayba shaxdii qalbiye gafiyo uma haysta ruux godabo washayra xumaan kuman guntano baan ku ilaaway geeda baxshee dadkan degayba shaxdii qalbiye godkaan degayba shaxdii qalbiye alloo ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo alloo ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo bushaadu dadbay u tahay gubasho wanaagga ad gaadhay u gambinayo inay gambiyahaan u soo guntadeen kahay garhko ka joogoyaha kahay gaadhko ka joogoyaha bushaadu dadbay u tahay gubasho wanaagga ad gaadhay u gambinayo inay gambiyahaan u soo guntadeen kahay garhko ka joogoyaha kahay gaadhko ka joogoyaha allow ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo allow ku gargaar kayga nabado